Soomaali waa salaamaya meel kastoo dunida joogtaan maanta waxaan rabaa inaan dawladda federaalka Itoobiya la hadlo iyo ragga Soomaalida ugu jira. Itoobiya waa dawlad federaal ah, qayb weyn bay Soomaalidu ka tahay. Waa dad isku tagay oo maamul samaystay, dawlad samaystay federaal oo ka wada dhaxaysa. Ragga Soomaaliyeed ee madaxda ay noogu jira fariin baan u diraya waan la hadlaya. Dawladda Itoobiya sidoo kale waan la hadlaya. Dawladda Soomaaliyeedna waan la hadlaya. horta ugu horeysa dawladda Soomaaliyeed waan u mahad celinayaa, wax wanaagsan bay qabatay. waa lagu hambaliyeeyaa qofku markuu wax wanaagsan qabto waa la hambaliyeeyaa. haddaad mucaarid tahayna waa inaad noqotaa mucaarid constructive oo wax dhisa ee mucaarid wax baabi'iya ha noqon weliga ha noqon. haddaad mucaarid maqasho waxbuu dhisaa, laakiin kan Soomaalidu inta badan waa mucaarid wax dumiya oo destructive. dawladda Soomaaliya wada fiican bay imika maraysaa. magacii Soomaaliyeed bay saf soo gelisay waad arkaysaa siday ugu guuleysatay in magaca Soomaaliyeed la isticmaalo. awood bay leedahay dawladda Soomaaliyeed, awood waxay leedahay siyaasadeed ayay leedahay maanta. awood dhaqaale ma leh, tu militarina ma leh, laakiin tu siyaasadeed oo xuduud weyn bay leedahay oo badeennii iyo dhulkeenniiba siday heshiisyada ay la gashay way noo muuqataa. marka inaan ku hambaliyeyno weeye dawladdeenu waxay qabatay amba Soomaalida waxay u qabatay innaga inoo shaqaysaaye wixii ay natartay waa inaan yani ku hambaliyeyna inaan jiidanno un maaha. wax qaldan in laga hadlaa waa sax, laakiin haddana wixii ay qabatay waa in lagu hambaliyeeyaa. magacii waa la bedelay, dawladda Itoobiyana way naga aqbashay, magacii ay ka codsatay dawladdeenu way yeeleen. waana wax wanaagsan oo dawladda Itoobiyana waan ugu mahad celinaynaa, waayo Itoobiya dal jaar baan nahay, inagu dad jaaraan nahay. ilaahay baana iskeen garab dhigay, inagu choice kama aynaan lahayn. ilaahay baa choice-ka halka ina dhigay. inaga waxa laynaga rabaa sidaan u wada noolaan lahayn Itoobiya. Soomaali saasa laga rabaa, dawladda Itoobiyana waxa laga rabaa maadaama aynu jaar nahay sidii aan ku wada noolaan lahayn inaga ayaa ka mas'uula. samayskana ilaahay baa sameeyay, laakiin inagu sidii aan u wada noolaan lahayn een u walaaloobi lahayn win aan win wax walba ugu noolaan lahayn, wax kasta qolo kastaba raali geliya aan ugu noolaan lahayn baa laydinka rabaa Itoobiya daatiin inaad idinkuna na dhowrtaan. geeskan Afrika nabad unbu ku sii waari karaya. hadday cadaawadi ka bilowdo geeskan Afrika fadhi ma jiro, dabkaasi meel walba uu gaadhaya. wadamada waaweyn ee Afrika ee geeskan Afrikana Itoobiya waa ka mid, had iyo jeer inay nabadda ilaaliso oo kii ka qayb ka mid ah ee meesha dhibaato ku dhacdana inay u gurmadaan. waayo nabadda Soomaaliya amba nabadda wadamada kale geeska Afrika iyagana way khusaysaa oo danba ugu jirta nabadda. danba ugu jirta inay Afrika geeskan Afrika oo dhan nabad wada ahaado, oy walaal ahaadaan, oy wada shaqaystaan, oy wax walba wadaagaan. waa danba ugu jirta Soomaali iyo Itoobiya iyo Djibouti iyo Kenya iyo Uganda iyo kulligood. danteenu waxay ku jirtaa inaan walaal ahaano. Itoobiyana sidaas oo kale danta Soomaaliyeed baa tiina idinkana idin dana oo aniga ciidankiina u soo diray ee ku dhimanayo. waayo danta Soomaaliyeed baa idinkana idin dana. marka isku dan baa dhahay Itoobiya iyo Soomaaliya waa isku dan, iyo Djibouti iyo Kenya iyo waa isku wada dan military, isku wada dan baa dhahay. marka danta inaga wada dhaxaysa aan ku wada noolaano win and win aan Israalig aan isku ixtiraamno. saasa ila muuqata nimanka Soomaaliyeed ee dawladda Itoobiya inoo jira ee magaca Soomaaliyeed matalayoon had iyo jeer waa inaad idinka Itoobiya oo dhan mas'uul ka ah. haddana waa inaad danaha Soomaaliyeed si gaar ah aad u ilaalisaan oo dawladda Itoobiya aad u fahamsiisaan siday Soomaaliya wax uga jiraan. dalal waxaan nahay Soomaaliya waa qabaa'il, wadamada kale Afrikaankii ma jirto oo qabaa'iladaas way ku yar yihiin. inkastoo inteena Itoobiya joogto xataa qabaa'ilka inagu nahay qabaa'il, laakiin Itoobiyaanka kale qabaa'il maahan, waa qurun ayay u wada shaqaystaan oo waa reero, laakiin inagu qabaa'il baan nahay. marka dawladda Itoobiya wixii Soomaali uga baahato dawlad Soomaaliyeed baa jirta. erarku wuxuu ku yimiday, qaladku wuxuu ka yimiday Itoobiya ayaa waxay heshiis la gashay qabiil ka mid ah 100 qabiilo ee Soomaaliyeed bay heshiis la gashay. halkaasuu qaladku ka dhacay. qabiil Soomaaliyeed bay Itoobiya heshiis la gashay oo tiri bad baan idinka kireysanayaa sida iyagu sheegayeen, aqoonsina waan idin siinaynaa tiraade. marka qaladku halkaas ka dhacay. dhulka waan idinka kireynaynaa yidhaahdeen amba aad kula heshiiseenna iyagoo male. dhul iyagu leeyihiin maaha, waa awdal state weeye, waa dhul ka go-an weeye. way sheeganayaan, way occupy gareeyeen dhulka ma leha.
marka idinku maadaama Soomaali tihiin inaad saa ugu sheegtaan way inayna waxaana suuragal ahayn oo Itoobiya oo dawladda inta leeg awoodda leh inay qabiil Soomaaliyeed ka dhex doorato boqolka qabiil ee Soomaaliyeed ee Soomaaliya wada degan ay tiraahdo heshiis baan la galay halkaas horta qalad ku yimid qaladku waa taas laakiin hadda dawladda Soomaaliyeed heshiis la gashaan oo u sheegtaan dawladda Itoobiya ba prime minister ku xigeen kuwa Soomaali inaad u sheegtaan baadina qabiil heshiis la gali karin oo taas ay keenayso khilaaf Soomaaliyeed amba burbur Soomaaliyeed haddii burbur Soomaali ku yimaadana idinkana uu idin soo gaaraya oo kama badbaadaysan masiibada Soomaaliya ku habsatay marka dabadda hadduu gurigu gubto guduhu ma badbaado haddii daaradiinu gubanayso gudihiinu ma badbaadayo marka inaad saa dawladda Itoobiya ugu sheegtaan baheed oo idinka saasaan idin dhaliilaya maadaama aad qayb ka tihiin dawladda Itoobiya oo prime ministerkii ku xigtaan oo wasiiradii ku joogtaan oo safaaradihii leedihiin oo military joogtaan inaad dawladda Itoobiya ka dhaadhicisaan baheed taas waa idin sagtay idinka oo tiraahdaan waxaan aad la heshiinaysaan amba aan la heshiinaynaa haddaan Itoobiya nahay waa qabiil Soomaalida ka mid ah oo waliba isagu aan Soomaalinimada ogolayn ta u dheer yahay Soomaalida kale aan Soomaalinimada ogolayn oo dad Soomaaliyeed ku duulay oo laayay oo xasuuqay ummad Soomaaliyeed xasuuqay oo laascaanood xasuuqo boor ma xasuuqo dadku victims u yihiin awdal xasuuqay oo victims ay u yihiin sidaa inaad uga dhaadhicisaan bahay dawladda Itoobiya oo sheegtaan imikana wad dariiq fiican bay Itoobiya socota hadday bad u baahan tahay dawladda Soomaaliya ayay kala heshiinaysaa 3,300 oo fiid waxaan jeedaa mayl oo waxaan leenahay bada 3,330 iyaan leenahay oo bada waa waxaan nahay wadanka ugu dheer baan ma leenahay xeebta Afrikada marka bad way naga heli kartaa Itoobiya laakiin waxay ku heli kartaa iyadoo dawladdeena kala heshiis laakiin haddii gooni u goosato idinkuna dhageysanaysaan markii heshiiska la galaya warqaladka idinka keenay dawladda Itoobiya idinka qaladkaasi galiyay idinka ayaa galiyay waa qalad waayo wad ogtihiin Soomaali qayb weeyaan kamid ah dalka Itoobiya hadday Itoobiya isku daydo inay Soomaaliya xoog ku soo gasho amba badaheeda ay qaadatana weligeed nabad kama dhacayso Itoobiya wad ogtihiin oo de Soomaalidii ba kamid ah gobolada ugu waaweyn ba ku jirta Soomaalidu waa 5 milyan hadday ka badneen Soomaaliya hadday Itoobiya isku daydo inay xoog isticmaasho oo ciidankeeda iyo dadka awoodeeda Soomaalina ku jirto inay dalkii Soomaaliya u isticmaasho dhibaatada way imanaysaa inaad u sheegtaan way consequence-ga imanay inuu yahay disaster oo iyagana dhibaatadu iman karto laakiin waxa wanaaga dawladda Itoobiya oo Soomaaliya gacan qabata oo Soomaaliya kale heshiisa wixii ay u baahanta oo baddi kale heshiisa oo sida wadamada kale Afrikaanka ay badaha u kala isticmaalaan iyaguna badda Soomaaliya u isticmaasho oo sharci iyo nidaamba u isticmaasho waayo inagu badihii waan buuxinaa dawladda Soomaaliyana waxa laga rabaa inay fududayso laga rabaa laakiin dawladda Soomaaliya waxaan leenahay war haddii aydan awoodi lahayn laakiin haddana waxaad haysataan awoodii baad cilmi baad oo waxaad haysataan awoodii dhaqaale ma haysaan awoodii militarina ma haysaan laakiin tii siyaasadeed baad haysaan marka haddii uu gobol ku Soomaali uu yiraahdo waan dhibaataynaya amba uu ka hor yimaado idinka ka mas'uula dawladda ka mas'uula si wax uga qaban lahayd wax walba gacantiinu ku jira dawladda aqoonsiyaatiin hatta numberka telefonka la isticmaalaya amba email balkan ay isticmaalayaan internetka idinka ayaa ka mas'uula gobolka dhanba ka xidhi karay gobolka dhanba waad ka xidhi karaysaa inaad aqoonteeda leedihiin kala warkama hayo hadduu noqdo gooni goosato waad ka xidhaysaan internetka labada xidhaysaan xoog baad ku jilba joojinaysaan oo ku sii socdaan waxani marka waa idinku waxaad bixiseen garoon aad bixiseen bay ku ciyaarayaan kuwan Soomaaliland la yiraahdo waa intuu ogolaashii intaad ogolaateen bay ordayaan ku ciyaarayaan laakiin inaad soo koobtaan weeyaan oo awoodina siyaasadeed isticmaashaan mar haddaydan tii military iyo tii dhaqaale midna toona maanta aydan lahayn awoodina siyaasadeed waana isticmaashaan waayo aqoonsigii baad haysataan dawladnimadii baad gacanta ku haysataan gobol idinka go'ay oo Soomaali ka go'ay waad maamuli kartaan waad sanduleyn kartaan wax walba idinkay gacantiina ku jirtaa inaad ku qasabtaan Soomaalida Soomaalinimada idinka ayaa la idinka sugaya
idinkaa ka mas-uula dowladdan etoobiyana inaan ku wada noolaano waa nabad geeska afrikeedani ugu jirtaa iyaga laftoodu inay nabad ahaadaan etoobiya danba inoogu jirta wadamada geeska afrika oo dhan bay dan ugu jirtaa jabuuti ay dan ugu jirtaa 120 malyan weeyaan hadday soo dhaqaaqaan dee badda inagu darayaan laakiin hadday nabad ahaadaan waa la noolaan karaynaa haddii si ay sooda soo jabiyaan dee laynama helaayo wan beersadna kama noqonayno waa baaba'ayna iyaga laftooda waan la eegaa dhibaatadoodu waxay tahay haddii ay ku qaboobayaan bad inay helaan soomaaliya oo dhan baa wadabada meeshay rabaan bay ka heli karayaan laakiin dowladda soomaaliyeed baa bixin karta ma dhici karto in qabiil soomaaliyeed ay etoobiya ka doorato qabiiladii soomaaliyeed oo tiraa bad ayna lahayn iyo biyo ayna lahayn baan idin siinaya oo iyagu shaqo ku lahayn taasi waa qalad taasi erar baheed waxay ahayd qalad weyn baheed qaldata cumro la sameeyey ahayd taa inay gasho etoobiya oo ku ogolaato maahayn dadkii lahaana maaha iyagu waa qalad baheed arrinkaas etoobiya inay ku dhacday dabin laakiin iyagu badoonitaanun bay ka ahayd laakiin duruufta soomaaliyeed iyo qabiilada soomaaliyeed iyo siday soomaali u nooshahay nimankan madaxda etoobiya jooga ee soomaaliyeed ayaa ka dhaadhicin lahaa dowladda etoobiya inay waxaan ayna shaqaynayn iminkana waxaan jecel lahay dowladda etoobiya inaan sidii hore walaalka ahaynu ahaano win aan weyn ku wada noolaano nabadgelyo geeska afrika oo dhan ay ku wada noolaadaan la is ixtiraamo oo badda iyo cirka iyo dhulka iyo xuduudaha waddan walba leeyahay waddanka kalena isticmaalo taasaan dee anigu ka codsanayaa dowladda etoobiya iyo dowladda soomaaliya in la is ixtiraamo ayaan codsanaynaa